السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلن حيسلة داوديال هالكني وأول بنادر أونلاين كسر دوادا wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee xilligan warkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dawladda Soomaaliya oo hanjabaad kama dambaysa hawada u marisay mucaaradka xaalka dalka oo meel xasaasiya maraya iyo dagaal laga cabsi qaba inuu toos uga bilowdo Muqdisho ciidamada oo si cad ugu biiray dagaal siyaasadeedka socda xoogna ku joojiyay xaflad lagu taageerayay mid ka mid ah musharaxiinta ugu caansan mucaaradka fil Soomaaliya oo raadinaysa wada ay ku daboosho dhibaatada socota xilli wasiirka amniga Soomaaliya oo amar siiyay ciidamada ka howlgalaya magaalada dawladda Kenya oo ciidamada Jubbaland u adeegsanaysa inay ku weerarto fadhiisimaha ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Gedo wararkii ugu dambeeyay xaalad kacsanaana oo laga soo sheegay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose wararka ka baxsan Soomaalida aan idin haynana xilligan waxa ka mid ah Israa'iil oo duqeyn culus ku dishay 12 askari oo u dhashay Falastiin intaasi saaxiibayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn baahinta warkeena imikii haatana waxaad isu diyaarisaan daawashada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan haddii ay ku tahay markii koobaad ee aragtay channelkana fadlan subscribe noo saar like muuqaalkan oo share garee kadibna gaarsii saaxiibadaada aragtidaadana nugula wada qaybta commentiga وهاجاك داوديال ku bilaabay sida hordhaca baahinta warkeena aad ku daawanayseen dawladda ayaa hanjabaad kama dambaysa xilligan hawada u marisay xubnaha mucaaradka dalka iyadoo xaalka dalku xilligan uu maraya meel xasaasiya si weyn looga cabsi qabo bilowga dagaal horle gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha ammaanka magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa uu si cod dheer ah u sheegay inaan loo dul qaadan karin kuwa uu sheegay inay doonayaan inay qalqal ku abuuraan amniga caasimadda ma mana jiri doono qof laga aqbalayo inuu nolosha 3 milyan ee ku nool Muqdisho dib ugu celiyo sidii ay ahayd 30 sano ka hor iyo in waqtigan casriga ah macawisa dabajeex la isku qaato dadkana u horseeda colaad burbur qasaaraha iyo sidoo kale dhibaato badan saraha xamar noogu yaalo oo dhulka la simo bangiyadeena Muqdisho oo la boobo jaamacadaha oo xarumo ciidan loo bedelo garoonka oo xidhma dekada Muqdisho oo Turkigu noo maalgeliyay oo loo isticmaalay xero maleeshiyaad qabiil iyo sidoo kale xarumaheena isgaarsiinta oo albaabada loo laaba safna loo galo goobihii taararka laga dirsan jiray arrintan ayuu tilmaamay inay tahay mid ay qorsheynayaan qaar ka mid ah dadka ku sugan Muqdisho balse dawladda Soomaaliya aysan marnaba arrintaasi aqbalahayn si cad ayuu u baahiyay xilligan in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay ka hortagida wax kasta oo khalkhal ku keenaya ammaanka dalka waxayna tilmaameen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulkaasi in gacan bir ah ay ula tagi doonaan shakhsi kasta oo u arkaan inuu yahay caqabada horumarka magaalada Muqdisho hadalkiisa oo u muuqda in si hoos u durayo xubnaha mucaaradka oo muddooyinkii ugu dambeeyay qalqaalinaya banaanbaxyo looga soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu si cad ugu tilmaamay in xilligan Muqdisho aysan diyaar u ahayn dib u laabasho dadka danaynayana ay wada cad marsiin doonaan sida uu hadalka u dhigay xal siyaasadeedka magaalada Muqdisho oo caasimadda ay ku nool yihiin dadka ugu badan Soomaalida ayaa xilligan u muuqda inuu yahay mid meel xasaasiya maraya waxaana qof kasta uu dhagta ku haya war walba oo soo kordhi kara xaaladuna waxa isbedeli kartaa saacad walba marka loo eego qaabka ay wax u socdaan haddii ay dhibaatadani hadda sii socoto ama ay sii weynaato cabsi badan ay qabaan shacabka ku nool magaaladan kuwaas oo aaminsan inuu dhici karo dagaal aan loo kala hadhin taasina ay dhibaato badan ku tahay shacabka oo ah kuwa u nugul markasta dhibaatada maadaama inta badan siyaasiyiinta isku haya xilalka sare ay yihiin kuwa ka yimid dalal shisheeye balse dhalasho ahaan uu ka soo jeeda dalka Soomaaliya ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si xoog ah ku joojiyay xaflad lagu taageerayay musharax madaxweyne Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow taas oo lagu qaban lahaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska kiiloomitir 4 Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa xaqiijiyay in kulanka ay ciidamada dawladda amreen in gebi ahaanba la joojiyo wax yar uun ka hor markii sida tooska ah u bilaaban lahaa
waxa uu ku eedeeyay ciidanka nabad sugidda qaranku inay ka dambeeyeen is hor istaagga lagu sameeyay kulanka wuxuuna intaasi ku daray in amarka uu bixiyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka. dhanka kale wararka qaar ayaa sheegaya in musharax madaxweyne Mustaf uu sidoo kale ka baxsaday goobta balse la tilmaamay in ciidamadu ay doonayeen in gacanta lagu dhigo. daqiiqada kadib markii kulankiisu uu baaqday kulan warbaahineed oo Muqdisho ku qabtay musharax madaxweyne Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa waxa uu sheegay in ciidamada goobta soo weeraray ay ahaayeen kuwo iskugu jiray booliis iyo sidoo kale ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. amarkooduna si toos ah uga yimi Fahad Yaasiin isagoona si aan dhuumasho lahayn u sheegay in xilligan Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay yihiin kuwa wada fadqalalada ugu badan ee dalka ka dhacaysa. Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka balse lagu tiriyo inuu yahay kuwa qonyar socodka ah ayaa si cadho leh waxa uu sheegay in dowladdu ay ku tumanayso dastuurka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxa uu sheegay inay yihiin laba shaqsi oo isku bahaysanaya xaqdarro sida uu hadalka u dhigay. waxa uu intaasi ku sii daray mar uu sii hadlayay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka waxgalka u ah bulshadu inaanay indhaha ka daboolan xaqdarrada ka dhacaysa meelaha qaar isagoo si kama dambaysa madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in loo baahan yahay in dalka iyo dadkaba uu tanaasulo isla markaana uu la yimaado siyaasadaan ahayn xoog iyo caburin sida uu sheegay. Filan Soomaaliya ayaa raadinaysa waddo ay ku daboosho dhibaatada socota xilli wasiirka cusub ee amniga Soomaaliya uu amar siiyay ciidamada ka howlgalaya meelo badan oo ka tirsan Muqdisho. Xasan Xundube Jimcaale oo mar kale ka hadlaya xaaladda ammaan ee Muqdisho iyo xidhnaanshihii daashaday shacabka ee saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa uu ugu horreyntii u tacsiyadeeyay dadka shacabka ee dhimihii ay kala kulmeen laamaha ammaanka. wasiirka ayaa waxa uu cadeeyay in cabashooyin badan ay uga yimaadeen shacabka Soomaaliyeed ee laga xidhay wadooyinka balse wuxuu sheegay in qorshoodu uusan ahayn dadka la dhibo. ciidamada ayuu tilmaamay inay yihiin kuwa hariya habeen u taagan sugidda amniga laakiin ay dhici karaan in danahoodii ama sida ay wax u rabi waayeen ay wax u dhacaan. cabashooyin badan ayuuna sheegay in dadka ay ka yimaadeen taasina ay tahay mid aan loo dulqaadanaynin. wasiirka ayaa ciidamada kula dardaarmay in dadka shacabka ah ay si wanaagsan ula shaqeeyaan isagoo xasuusiyay in qof kasta uu ka soo qaaday ehelkiisa. dhinaca kale maruu sii hadlayay wasiirku waxa uu eedayn kulul dusha kaga tuuray warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha Muqdisho oo uu sheegay inay yihiin kuwa u badan inay hal dhinac ka waramaan isla markaana u xagliyaan. waxa uuna kula dardaarmay dadka wax gudbiya sida warbaahinta iyo kuwa isticmaala baraha bulshada inay dadka la wadaagaan wixii aan wax u dhimayn xasiloonida amniga qaranka isla markaana ay ka fogaadaan been abuurka iyo kicinta bulshada. hadalkiisa oo u muuqday mid uu ku daboolaya xidhnaanshiyaha mas'uulka ay ka tahay dowladda uu ka tirsan yahay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka tacsiyadeeyay dhibaatada soo gaadhay dadka shacabka oo uu sheegay inaysan ahayn mid ay ka dambayso dowladda federaalka Soomaaliya. si guud ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya guud ahaan dadka qaybihiisa kala duwan ay mas'uul ka saaran tahay loona baahan yahay in muwaadin kasta dhankiisa ammaanka uu ka sugo. dowladda Kenya ayaa waxa ay ciidamada Jubbaland u adeegsanaysaa in weerar bareera ay ku qaado fadhiisimaha ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya iyadoo xilligan Kenya ay la timi qorshe cusub oo ay u amaleegayso ciidamada Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo. dowladda Kenya ayaa xilligan taageero adeegsanaysa wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ay ku caawinayso hubiye ciidan badan kaas oo ay ku doonayso inay ku weerarto gobolka Gedo oo gacanta ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya. xogta ay helayso warbaahinta ayaa sheegaysa in ciidanka Jubbaland ee Cabdirashiid uu hogaaminayay ee ku sugan xerada Banyole ee Mandera inay u diyaar garoobayaan inay ku duulaan degmada Baladxaawo kadibna ay u sii gudbaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. arrintaas oo ay Kenya uga dan leedahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku saarto cadaadis xooggan. saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay sheegeen in dhankooda diyaar ay yihiin inay iska difaacaan Kenya haddii ay ku soo gardarooto dhulkooda balse wararka qaar ayaa tilmaamaya in Kenya aysan si bareer ah u soo aadi doonin dhulka Soomaaliya balse ay ku soo gaban doonto maamulka Jubbaland gaar ahaan kooxda uu horkacaya Cabdirashiid Janan.
haddii Kenya ay dagaal toos ku soo qaaday qaybo ka mid ah gobolka Gado oo hadda gacanta ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya, dhaliilna ay u hayaan maamulka Jubbaland, waxa ay noqon kartaa mid sii xumaynaysa xiriirka, waxaana halkaasi ka dhalan kara dagaal daba dheeraada oo dhex mara dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. ugu dambeyntiina saaxiibayaal, wararka laga helay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in khilaaf uu soo kala dhexgalay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo ku-xigeenkiisa. khilaafkan ayaa la tilmaamay inuu salka ku hayo dad lagu laayay qaybo ka mid ah degmada Afgooy, kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux. wararka aan helayna ayaa sheegaya in gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose uu daayay qaar ka mid ah dad loo soo xiray dhacdadaasi, balse uu ka xumaaday arrintaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka, taasina ay keentay inuu cirka isku sheereero khilaafka ka dhaxeeya mas'uuliyiintan. dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah odayaasha ayaa xilligan wada dhexdhexaadin labada mas'uul, waxayna wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in kulamo halkaasi ay ka socdaan. ugu dambeyntiina saaxiibayaal, dowladda Yuhuudda ayaa duqeyn waxa ay ku dishay 11 askari oo ka tirsan Falastiin. duqeyntan ayaa timid kadib markii Falastiiniyiintu ay weerar ku soo qaadeen fadhiisimo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen, halkaas oo ay ku dileen 3 sarkaal oo ka tirsan Yuhuudda, kadibna dhankooda weerarka loo qaaday. afhayeen u hadlay Yuhuudda ayaa waxa uu warfidyaanka u sheegay in ay aargoosatay Israa'iil, weerarkana ay ku horeysay xukuumadda Falastiiniyiinta sida uu hadalka u dhigay. inta badan Israa'iil ayaa weerar aan loo meel dayin ku qaada dhulka Falastiiniyiinta. guud ahaan saaxiibayaal, wixii xilligan dalka iyo dunida aan idinka haynay waa naga intaa.